toddobaadkii hore waxaynu ka hadalnay dad ay malaa'igtu u ducayso acmaal wanaagsan oo ay sameeyeen awgeed waxaanaynu u sheegnay inuu isu xusuusinay si aynu uga mid noqonno dadka acmaashaas sameeya ee ku guulaysta ducada malaa'igta helo ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo dembi dhaafkiisa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala. maanta waxaynu xusi doonaa camallo dadka sameeya malaa'igtu ay nacdasho oo ay habaaraan oo ay ku habaaraan ilaahay naxariistiisa inay ka qadaan, ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabkiisuna inuu ku dhaco. acmaasha waxaa kow ka ah gaalnimada qofku uu ku dhinto isagoon ka toobad keenin, ha noqdo qof aan diinta islaamka sooba gelin ama qof intuu islaamay gaaloobo diintii islaamka dib uga noqday gaalnimada noocaasana ku dhintay. qaala allahu subxaanahu wa tacaala ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar ulaa'ika calayhim lacnat اllahi wاlmalaa'ikati waاnnaasi ajmaciin. kuwa gaaloobay gaalnimo ku dhintay ee ilaahay subxaana wa tacaala lagu horgeeyey kuwa nacdasha ilaahay baa ku dhacaysa, ilaahay baa naxariistiisa ka eryaaya, ilaahay ciqaabkiisa ku habsanaya. malaa'igta ayaa nacdalaysa oo ku habaaraysa ilaahay naxariistiisa inuu ka qadiyo, ducadoodana ilaahay waa aqbalayaa. waxaa nacdalaya dadka oo dhan, jamiicu nnaas, gaal iyo muslimba ilaahay baa subxaana wa tacaala ku sallidaya. arrinka labaad, waman axdatha fii diin illah aw fii dunya annaas, waa qofka diinta ilaahay waxaan ka mid ahayn kusoo dara, qofka bidco bilaaba, waxaan ilaahay diintiisa ka mid ahayn qofka diinta ugu abtiriya, ama caqiide ha noqdo ama cibaado ha noqdo ama ha noqdo camal kaleba, amaba se dhibaato weyn iyo faldembiyeed weyn la soo dariya oo ummadda adduunyadeeda dhibaataynaya, waxa iyaguna la mid oo raacaya kuwa bidcada la yimi ee diinta ilaahay wax ku soo daray, kuwa difaacee u hiiliya ee radinta la radinaya dadka ahlu sunnuhu ay radinayaan, ee bidcadooda dadka ay uga digayaan hor istaaga oo iyada lafteeda dacaayadeeya oo fool xumeeya si kuwa bidcadooda ay usii socoto. waxaa la mid ah qofka jariime iyo faldembiyeed weyn la yimi cidda difaacaysa. qof baa qof dilay, camdan buu u dilay si ula kaca, dad baa difaacaya, way qarinayaan, ciidan bay hordhigayaan si aan loo gaadhin oo isaga aan loo soo qaban. looyaraa laga yaabaa inay u qabtaan, maxkamadaha ka difaaca. faldembiyeedada kalena waa la mid, laakiin dilka ayaan tusaale usoo qaatay maadaama uu yahay dembiga ugu weyn marka gaalnimo laga yimaado. wuxuu yihi caliyu radia allahu canhu, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waman axdatha xadathan aw aawaa muxditha facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ika waannaasi ajmaciin. qofka arrin la soo dariyo diinta waxaan ka mid ahayn ku dara, ama dadka adduunyadooda iyo noloshooda faldembiyeed weyn ku soo kordhiya oo uu ku dhibaataynayo, ama qofka kaa hooye ee difaaca ee kaa gabaad u noqda, waxaa dushiisa nacdasha ilaahay. ilaahay baa subxaana wa tacaala naxariistiisa ka fogeynaya. malaa'igta ayaa nacdalaysa oo ku habaaraysa raxmadda ilaahay iyo dembi dhaafkiisa inuu ka qado, dadka oo dhan baa kaa nacdalaya. abu daawuud baa xadiidkaasi wariyey. qofka muslimka ahi guud ahaan waa inuu ka digtoonaado cidda baadil la timi, ama ha noqdo baadil dadka diintooda waxyeelaynaya sida shirkiga iyo bidcada iyo jaraa'imta iyo macaasida waaweyn, ama ha noqdo mid dadka adduunyadooda, naftooda, maalkooda, cirdigooda iyo sharaftooda wax u geysanaya, inuu difaaco looyar u noqdo qofka muslimka waa inuu iska ilaaliyo. ama qabiil ha ku difaaco, sida maanta badan waxyaabaha aan qarsoonayn waxaa ka mid a qof baa wax dilaya, qabiiladiisibaa xagga dambe marinaysa, qaatilkii iyo kii wax dilay keena marka la yidhaahdo waxay leeyihiin ninku waa nin reer hebela ee reer hebel buu wax idinka galeena reer hebel la xaala.
arrinta noocaasi waxay dhiirigelisay faldembiyeedka dilku uu ka mid yahay. waxaynu ogsoonnahay maanta dad baa looyara ah oo dadku ay wakiil ka dhigtaan marka qadiyadii hawli ay maxkamadda kaga jirto, isagoo og qofkan looyarka ka dhigtay inuu yahay qof gardaran oo xaqan uu sheeganayo aan lahayn, ama kan loo sheeganayo lagu leeyahay oo uu duudsinayo ayuu looyar u noqonaya. lacag yar baanu arrintaa u gelayaa, nacdasha ilaahay baa kuwaa ku dhacaysa, malaa'igtaa habaaraysa, dadka oo dhan baa nacdalaya. waxaa ka mid a dadka malaa'igtu ay habaarto man ashaara bixadiidatin ilaa akhiih, qofka qof muslima hub ku fiiqa. hubku ama ha noqdo alaslixatu lbaydaa, hubka cad sida warmaha iyo midiyaha iyo seefaha iyo waxyaabaha kale la midka ah, ama ha noqdo alaslixatu naariya, hubkan dabku uu ka dhaco sida qoryaha iyo baaskooladaha iyo wixii lamid a, inuu ku fiiqo oo qura, ama ha ku baqagelinayo ha argagixinayo, ama arrintaasi ciyaar iyo dheeldheel ha ka ahaato, intaasi oo qura ayaa faldembiyeed weyn oo qofku uu ku mutaysanayo habaarka malaa'igta. wuxuu yihi abu hurayra radi allahu canhu qaala abulqasim sala allahu alayh wasalam, wuxuu uhi nebi maxamed man ashaara ilaa akhiihi bixadiida faina almalaa'ikata talcanuhu xataa yadacah, qofka walaalkii bir ama hub ku fiiqa malaa'igtu way nacdalaysa. ilaahu naxariistaada ka foge, ilaahay ou ha u dembi dhaafin, habaarkaasaa ku socda ilaa arrinka noocaasa iyo ficilka uu ka hadhayo o uu joojinayo. wain kaana akhaahu liabiihi wa ummih, haba noqdo ka uu hubka ku fiiqay walaalkiisa ay isku hooyiya aabba yihiin. muslim baa xadiidkaasi wariyey. arrinka noocaasiya sababta loo diiday way caddahay, baqagelin iyo argagixin baa ku jirta. qof muslima in laga argagixiyo o laga nixiyona lama ogola. mar labaadka arrinkaasi wuxuu sabab u noqon karaa in hubkaasi qofka uu ku muruxsado, dabeetana qofkii ciyaaraya uu noqdo qof qaatila, qof wax dilay. waa ka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yidhi waxaa dhici karta hubka walaalkii uu ku fiiqay shaydaanku gacantiisa inuu ka saaro, oo qofkaasi inuu ku dhinto ama waxyeel la gaadho sabab uu noqdo. arrinta noocaasi in ay sababto qofkii sidaa yeelay inuu halaagsamo oo cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo ciqaabkiisa uu ku dhaco. walaalkii ay isku hooyiyi aabba yihiinba ha ahaado, arrinka noocaasa diidmadiisa aada loogu xeel dheeraaday. macnaa qofku ama qof cadowa ha noqdo, ama qof kuu dhow ha noqdo, qof aanad dhibaato la doonahayn ha noqdo, ama midaad dhibaato la doonayso ha noqdo, arrinka noocaasi ahi sidiisa ayuu mamnuucu yahay oo shareecada islaamku aanay u ogolayn. arrinka afraad ee sababa malaa'igtu qofka inay habaarto waa man intasaba ilaa gayri abiih, waa qofka ku abtirsada qof aan aabbihii ahayn. wuu og yahay inaanu dhalin, haddana wuu sheeganaya, wuxuu leeyahy waa aabbahay, oo isaga ayuu ku abtirsanayaa. arrinta nasabku waa arrin aada iyo aada u xoog badan oo shareecadu ay ilaalisay. axkaam fara badan ayaana la xidhiidha oo nasabka sugnaanshihiisa ku xidhan. haddii markaa qofku nasab aanu lahayn uu sheegto oo cid aan dhalin uu ku abtirsado, arrimo fara badan ayaa ka dhalanaya, xuquuq badanina waa ku dayacmaysa. qofa xaq maal aanu xaq u lahayn buu qaadanaya, u dhaxlaya. dumar aanu maxram u ahayn oo ajanabi uu ka yahay ayuu dhex joogaa. kuwa xalaal u ahaa oo ajanabi ka ahaa ayuu iska xaaraantimaynaya oo u haystaa inay maxaarimtiisii yihiin, amaba se uu sheeganaya. waxaa arrinka noocaasiya ka dhalanaya ikhtilaad lansaab, abtirsiintii iyo nasabkii inuu isdhex galo oo dadku ay isku walaaqmaan. wuxuu yihi caliyu radi allahu canhu, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man iddacaa ilaa gayri abiih facalayhi lacnat اllah wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu ywma alqiyaamati sarfu walaa cadla, rawahu lbukhaari wa muslim. qofka aabbihii midaan ahayn aabbihii inuu yahay ku sheego oo ku abtirsada, waxaa dushiisa nacdasha ilaahay. malaa'igtaa nacdalaysoo habaaraysa, dadkao dhan baa nacdalaya. maalinka qiyaamo marka ilaahay la hor tago, faral iyo sunno midnaba laga aqbali maayo. arrinkaasi waa dembi aada u weyn
oo sabab u noqonaya qofku faralladii uu gutay ama salaada noqdaan ama soom ama kuwa kale iyo sunnayaashii cibaadaadka ah ee uu ku dadaalay ajarkii uu ka heli lahaa inuu baaba'o faldembiyaadka weyn ee uu galay awgii. arrinka shanaad ee sababa malaa'igtu inay nacdasho qofka, malaa'igtu inay habaarto, waa gabadha gogasha diidda cudurdaar la-aan, cudurdaar sharci iyadoo aanu jirin, cudurdaar la taaban karo sida xanuun iyo wax la midina iyadoo aanu jirin. waajib waxaa ku ah haddii gogasha uu ugu yeedho inay aqbasho. haddii ay diiddo cudurdaar la-aan dembi weyn bay ku jirtaa. iyadana waxaa ku socda habaarka malaa'igta iyo nacdashooda ilaa arrinka noocaasi ay ka soo noqonayso oo ay raalli gelinayso. wuxuu uhi abu hurayra radi allahu canhu qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam ida daca rajulu imra'atahu ilaa firaashi, ninku haddii gabadha gogasha ugu yeedho falam taأti oo aanay u iman, fabaata gadbaana calayha, oo habeenkaa uu beriyo isagoo u cadhaysan, lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbixa aw tarjica, malaa'igta ayaa nacdasho gabadhaa. ilaahu naxariistaada ka foge, ilaahayow ha u dembi dhaafin, ilaahu gabadhaa jannaha geynin, ilaa waagu uu baryaayo ilaa ay ka soo noqonayso dembiga noocaasa. abu daawuud baa wariyey riwaayadda muslim, ila kana aladii fi الsamaai saakhiطa calayha xataa yarda canha. allah khalqigiisa ka sareeya, aladii fi الsamaa waa allah, ilaahay khalqigiisa waa ka sareeya sida qur-aanka iyo sunahaba ku cad, caqliga iyo fidrada saliimkiina ay tusinayso. allah khalqigiisa ka sareeya wuxuu ahaadaa gabadhaa mid u cadhaysan ilaa gabadhaasi ay raalli gelinayso ninkeedaa cudurdaar la-aan ay ka cadhaysiisay. dembiyada noocaasa ayuha almuslimuuna cibaad allah ha laga dheeraado, qofkii ay ka dhaceenna ilaahay uga toobad keeno si nacdasha iyo habaarka malaa'igtu uu uga istaago. ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu inaga ilaaliyo dembiyada iyo kuwa la midka ah, wixii inaga dhacayna ilaahay inuu inoo dhaafo. dembiga lixaad ee ka mida dembiyada cidda samaysa malaa'igtu ay habaarto waman xaala duuna tanfiidi sharci illah, waa qofka hor istaaga ee ku hor istaaga hadalkiisa, xoolihiisa, awooddiisa maamul ama xoogeed in sharciga ilaahay uu fulo u shaqeeyo. qofka hor istaaga qisaastii, qof bay qisaasi ku waajibtay, qof buu camdan u dilay, dadkii dhiigga lahaa waxay dalbayaanay codsanayaan qofkaa in loo qisaaso. qof baa hor istaagaya oo odhanaya qofka ayaan la qisaasin. dad badan baa arrinta noocaasiya sameeya. waxaa ka mida odayaasha qabaa'ilka hormoodka oo u taliya. qofkii oo qisaas doonayaa lagu khasbayaa qisaasta inuu ka tanaasulo oo la odhanayaa ma qaado, reer hebel xeer baa inoo yaalle. ama qofkii oon isagu qisaasba doonahayn ee qofkaa inuu cafiyo doonayo mag uu ku bedasho ama waxbaba inaanu u raacin ayaa la odhanayaa ma tanaasuli kartid. waa inshooran baa lagu jiraa oo adna reerka ayaad ka mid tahay, waa lagu dayrinaya, cunaqabatayn baa lagu saaraya haddii aad qofkaasi aada cafido. xaq ilaahay uu siiyey baa laga hor istaagaya, wuxuu ilaahay dhiiri geliyey ayaa la hor istaagaya. waxaa la mida kuwan yidhaahda xuquuqul insaanka ayaanu u doodnaa, in badan bay hor istaagaan qisaasta. haddii qof ama laba ama saddex la qisaaso qayladooda ayaa yeedhaysa, iyagoo weliba qaarkood islaamka ku abtirsanayoo sheeganaya inay muslimiin yihiin oo laga yaabo inay salaada tukadaan. sharciga ilaahay bay hor istaagayaan. xuduud haddii lasoo hadal qaado, cuquubaadka sharciga ee jaanta go-an ee dembiyada qaarkood shareecadu ay u dejisay ee ummadda danteedu ay ku jirta in la fuliyo, qaar baa markiiba samada ka dhawaaqaya oo sharciga ilaahay subxaana wa tacaala hor istaagaya. wuxuu uhi cabdullahi bnu cabaas qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam waman qatala camda, qofka qof si ula kaca oo kasa u dila, faqawadu yadayhi, wixii gacmihiisu ay geysteen baa laga jaraya, bimacnaa waa la qisaasaya. faman xaala baynahu wa baynahu, qofka qofkaa iyo qisaasta kala dhex gala ee hor istaaga qofkaa in la qisaaso, qisaasta xaqa loogu yeeshay,
dadkii xaqa u lahaana ay doonayaan facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin ilaahay baa nacdalaya naxariistiisa ka eryaaya malaa'igtaa nacdalaysoo habaaraysa dadkao dhan ayaa nacdalaya abu daawuud ayaa xadiidkaa wariyey arrinkaasi aada buu u jiraa qofka muslimka ahi sharci ilaahay subxaana wa tacaala iyo xukum ilaahay inuu hor istaago oo uu qowl ku hor istaago ama qalin ku hor istaago inuu aada uga digtoonaadu iska ilaaliyo weeye maanta adduunyaa la jooga waana maalmo kooban waa laga tegi doonaa adduunyadana ilaahay baa loo hortegi doonaa qofkaana xaalad adag baa sugaysa haddaanu ilaahay u toobad keenin arrinka toddobaad waa sabu saxaaba malaa'igtu waxay habaaraan ay nacdalaan dadka saxaabada caaya saxaabadu waa dadkii nebi maxamed la kulmay iyagoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumaysan iimaankaana ku dhintay oo ilaahay kula kulmay ilaahay baa raalli ka noqday oo ammaanay ilaahay baa janno u ballan qaaday wax weyn bay u qabteen diin alislaam waa u nusreeyeen oo naf iyo maal iyo wax walba waa u hureen oo qaali ah fadli weyn bay ku leeyihin ummadda inta ka dambeysay oo wax allaale waxaa diin laga dhiganayo ee caqiide inoo ah waxaynu ilaahay ku caabudayno axkaamta dadka muslimiinta ahi ay afcaashooda ku salaynayaan taa ay ku kala baxayaan iyagaa xifdiyo nebi maxamed ka bartay calayhi salaatu wasalaam iyagaa soo tabiyey oo ina soo gaadhsiiyey cayma mudna ammaan bay mudayin saxaabada rasuulku in ilaahay subxaana wa tacaala naxariis iyo raalli ahaansho loo weydiiyey mudayin in la jeclaado ayaa waajiba oo saxaabada rasuulka dhammaantood qofka muslimkaah uu jeclaado qofka taa ka tallaaba ee saxaabada rasuulka caaya malaa'igtu way habaarayaan wuxuu uhi cabdullahi bnu cabaas qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam man saba asxaabii facalayhi lacnat اllah wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin rawahu طabaraaniyu fi lmucjam اlkabiir wuxu uhi nebi maxamed qofka saxaabadayda caaya nacdasha ilaahay baa ku dhacaysa malaa'igtaa nacdalaysa oo habaaraysa dadka oo dhan ayaa nacdalaaya arrinka noocaasiya waxaaba diin ka dhigtayba dhaqan maahae diin baabay ka dhigteen iyo caqiido kuwa shiicada ah ee rawaafida eeraan iyo ciraaq iyo lubnaan iyo dhul fara badan oo dhulka islaamkaa jooga cadowgooda koobaad ee gaalada kaga darani waa saxaabadii rasuulka laga bilaabo abubakar iyo cumar kuwaana isku diin ma nihin inaga diinteennu waxay dhigaysaa oo qur-aankeenna ku yaala oo axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam ku qoran saxaabada rasuulka in la jeclaado wanaagooda in la sheego waladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biاliimaan wla tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim arrinka noocaasiya waxay isku dayaan inay u soo waaridaan dhulka islaamka oo maanta waxaad arkaysaa dhalinyarteenna ka mida oo meelaha wax ku qorqora facebook iyo meelaha la midka ah oo saxaabadii rasuulka u baxbaxsanaya qaar abu hureyre wax ka sheegaya waa kii axaadiida rasuulka inoo soo tabiyey qaar mucaawiya radia allahu canhu oo nebi maxamed uu ku aaminay qoritaanka waxyiga mu'miniintao dhanna abtigooda maadaama umu xabiiba oo xaaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ahayd walaashii bintu abi sufyaan arrinta noocaasi waxay kaga timi dad saxaabada rasuulka ridwaan ullahi calayhim wax ka sheega oo ay dhegaysteen ama qoraaladooda ay akhriyeen kuwaasi waxaa ka mid oo dhalinyaro fara badan ay la xidhiidhaan oo anigu aan ku ogahay oo magaalada hargeysa joogiyo meelo kaleba ninka asal ahaan falastiiniga la dhahda cadnaan ibraahim ninkaasoo saxaabada rasuulka ridwaan ullahi calayhim qaar badan oo ka mida caayo wax ka sheega saxaabadaasoo mucaawiya uu ka mid yahay bal caaisha radia allahu canha oo mu'miniintao dhan hooyadooda oo ilaahay uu beri yeelay ayuu ninkaasi u baxsaday facalayhi min allahi maa yastaxiq arrinka sideedaad ee malaa'igtu qofka ay ku habaartaa waa kitmaan lcilm waa qofku cilmi ilaahay uu siiyey oo dadku ay u baahan yihiin dadka inuu ka qariyo dadki inuu qisho xaqi u caddayn waayo ilaahay wuxuu ballan kaga qaaday dadka cilmiga uu siiyey inay cilmiga dadka gaadhsiiyaan ilaahay wuxuu uhi waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba
latubayinunnahu linnaas walaa taktumuunah. ilahay wuxuu ballan kaga qaaday dadka inay u caddeeyaan kitaabka iyo cilmigaa la siiyey oo aanay qarin. qofka qariyana ilaahay wuxuu sheegay nacdasha ilahay inay ku dhacayso. ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum اllah wayalcanuhum اllaacinuun. ilaahay wuxuu yihi kuwa qarinaaya caddaymaha iyo hanuunka aanu soo dejinay dadka intaan u caddaynay dabadeed ee kitaabka aanu ku sheegnay, kitaabkiina iyagu ay barteen, kuwa ilaahay baa nacdalaya. wayalcanuhum allaacinuun, kuwa wax nacdaloo dhan baa nacdalaya. kuwa wax nacdalo waxa u horeeya almalaa'ika. bal waxay yidhaahdeen culimada qaarkood oo ahlu tafsiirka ahi allaacinuuna halkan malaa'igtaa looga jeeda. almuhim malaa'igtu waa ku jiraan, cid kalaba ha raacdo sida dadka muuminiintaa. qofka ilaahay subxaana wa tacaala cilmi iyo aqoon diineed uu baray dadka inuu u sheego uu gaadhsiiye ayaa waajib ku ah. inuu qariyaana ma banaana, isagoo manfac adduunyo ilaashanaya ama mansab dhowranaya ama waxyaabo kale xeerinaya ama isagoo dhibaato soo gaadhaysaaba aanay jirin iska baqanaya oo fulaynimo lagu salliday. ilahay baynu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu inaga ilaaliyo dembiyada malaa'igtu cidda samaysa ay habaarayso. allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wfi اlaakhirati xasana waqinaa cadaab الnar. allahuma صli عlى nabiyina muxamed wعlى ali nabiyina muxamed kama صlayta عlى ibrahim wعlى ali ibrahim wbarik عlى muxamedi wعlى ali muxamed kama barakta عlى ibrahima wعlى ali ibrahima fi اlcaalamiina inaka xamiid majid.